Waa maxay waxa qiimaha u yeela maalintaada? Dadka intooda badan marka ay ka fikiraan nolosha waxay isweydiiyaan inta sano ama inta maalin ee qofku nool yahay. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay in tirada maalmaha iyo sanadaha kaliya aysan ahayn waxa nolosha qiimeeya. Waxa run ahaantii nolosha qiimeeya waa tayada iyo samaynta maalmahaas. Hal maalin oo aad wax wanaagsan samayso ayaa ka qiimo badan sanado badan oo wax faa'iido leh aadan samayn. Waxaa jira oraah oranaysa noloshu ma qiimayso inta maalin ee aad nooshahay, balse waxay qiimaysaa inta maalmood ee aad wax wanaagsan samayso. Maalmo yaryar oo qiimo leh. Waxaa jira dad cimri dheer ku noolaanaya, laakiin marka ay dhintaan aysan bulshadu kaga tegin wax xasuus ah. Dhanka kale waxaa sidoo kale jira dad cimri gaaban ku noolaa balse taariikh weyn kaga tegay bulshada. Tusaale ahaan, nebiyada iyo culammada waaweyneed cimri ahaan qaarkood waxay noolaayeen muddo aad u gaaban, balse ilaa maanta waxaa weli lagu xasuustaa wanaaggoodii iyo iftiinka ay bulshada u horseedeen. Hal abuurayaasha iyo hormuudka bulshada. Qof hal fikir oo cusub keenay ayaa keligiis dunida wax ka bedelay, xitaa haddii uu cimri gaaban ku noolaa. Qiimaha maalmaha waxa wanaagsan lagu sameeyo. Waxaad farxad ku beeraysaa qalbiyada dadka. Qofka dadka ku farxad geliya hadal wanaagsan ama hal ficil oo wanaagsan wuxuu abuurayaa maalmo aan la iloobi karin. Waxaad dhigaysaa taariikh. Taariikhdu ma qorayso dadka maalin kasta fadhiista oo aan wax badan qaban, balse waxay qoraysaa dadka qiimeeya ficilada wanaagsan. Waxaad helaysaa qadarin iyo ducooyin. Marka aad dadka kale wax u qabato, ducadooda ayaa noloshaada u noqon kartaa barako. Maalmo yar oo wanaagsan ayaa noqon karaa mid weligeed jirta. Hal maalin oo aad qof nolosha u beddesho, qof gaajo ka saarto, ama qof qalbi jabsan u gargaartid ayaa noqon karaa xasuus weligeed la nool dadka. Sidee looga dhigi karaa maalinta mid qiimo leh? Samee wax yar oo wanaagsan maalin kasta. Ma aha in mar kasta wax weyn la sameeyo. Xitaa dhoolla caddaynta oo aad ku salaanto qof kale waa qiimo. Ka tag raad wanaagsan. Qof kasta wuxuu leeyahay awood uu ku bedeli karo qof kale, ha ahaado adiga oo macallin ah, ama arday, ama waalid, ama saaxiib. Samee wax kaasii noolaan doona geeridaada dabadeed. Waxbarid, dhisid, hal abuur ama samafal, dhammaantood waa wax weligood sii noolaanaya. Tusaalooyinka nolosha. Nebi Moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu cimri ahaan noolaa muddo aan aad u dheerayn, balse maalmihiisii wuxuu ku bedelay taariikhda bini'aadamka oo dhan. Hal abuurayaasha sida Thomas Edison iyo sida Steve Jobs, maalin keliya oo ay fikrad cusub u dhalatay ayaa dunida u aragtay jihada cusub ee hormuudka tiknoolajiyadda. Dad samafalayaal ah oo bulshada u adeega, hal maalin oo ay wax u qabtaan ayaa badbaadin karta kumanaan nololood. Marka aad nolosha ka fikirto, ha ku mashquulin tirada sanadaha ama maalmaha aad nooshahay. Wax ka muhiimsan ayaa jira. Waa tayada iyo saamaynta maalmahaas. Hal maalin oo aad wax wanaagsan samayso ayaa ka qiimo badan boqolaal maalmood oo aad ku nooshahay adigoon cidna wax u tarin. Haddaba su'aashu waxay tahay, maalmaha aad hadda nooshahay ma yihiin kuwa tirada lagu daro mise waa kuwa taariikhda lagu qoro? Noloshu waxay kuu qiimaysaa inta maalin ee aad wax wanaagsan ku samayso. Ha ku mashquulin tirinta sanadaha, ku mashquuli samaynta waxa wanaagsan.